waxaan rabnaa inaan halkaan ku iclaamino shir saxaafadeed ku qabanno oo ku saabsan doorashooyinkii 2016 soo xulidda xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaybta kaga aadan Puntland arrintaas oo saddex fays aanu u kala qaybinay ama 4 fays intay noqotaba fayskii horeeyay waxaanu qabanay horey baanu qabanay waxaana ku soo baxay 12 kursi xildhibaanadood baa soo baxay bisha 5teedii iyo bisha 6teedii haatan maanta ay bisha 9 tahayna waxaanu rabnaa inaanu iclaamino qaybtii dambe ama fayskii labaad taasoo aan rabno haddii alla idmo sida ugu dhaqsaha badan inay ergadaas u soo xirooto bari waxaa bilaaban doonta qaybo badan oo kamidna way joogaan inta harsanna waxaan jecel lahay ilaa bari inay soo galaan bari iyo saad dambe iyo maalinta waxaas ku diiwaangelintii iyo dejintii iyo kaararkii labada bari oo ku xigana waxaa imaan doonta haddii alla idmo waxay noqon doontaa codayntii waxaan isleeyahay marka bisha 14keeda siday ku aadan tahay codayntu way bilaabanaysaa qaybta labaad insha Allah waxaan markaan halkaan beelaha ay ka mid yihiin beesha Hortable oo leh 3 kursi ergooyinka beesha Hortable insha Allah inay yimaadaan wixii maqan inay yimaadaan waxa ka mid ah beesha مهري أو ميشا عرب صالح جفيدة حسن صالح reero inay ma garanaysaa u sii astaysan kursiga u astaysan iyaguna inay yimaadaan ilaa bari waxa kale oo loo yeerayaa beesha dhulkaante Maxamed Wadaad iyaguna inay yimaadaan ilaa bari inay yimaadaan waxa kale oo kamid ah beesha leelkase oo kala ah Maxamuud Cali iyo reer Xasan iyaguna inay si degdeg ah u soo galaan inta joogto ma inta kale baastaas hadda aan u yeeray waxaanu jecel lahay inay ku soo galaan xilligii loogu talagalay si ay u dhamaato oo horay loogu galo hawsay systemkii la galo haddii Ilaahay idmana bari iyo saadame iyo maalinta ku xigta saddexda bari waxay noqon doontaa sidaan horay u sheegay dejintii iyo sawiraadii iyo kaararkii iyo wixii la mid ahaa ayay tababarkii ku jira isna oo tababarku maalinta u dambeeyo noqon doonaa inta hadday maraan ergaduna waxa weeye waxay bilaabayaan cod bixintii waxaanu rajaynaynaa insha Allah qaybta damana inay ka fogaan xilliga xilli ku dhow ay noqoto oo bisha tan 20keeda ama 20 iyo adigu xilli aan ka fogeyn inay naga dhamaato doorashada aqalka hoose sida annaga marakan aanu hadda u qorshaysanayno haddii Ilaahay idmo intaasaanu idinku yeeray waxaan kale oo ka codsanaynaa waxaa jira kuraas loo qoondeeyay dumarku inay yeeshaan oo gaar ugu tartamaan waxaan rajaynaynaa kuraastan fayska hore ugu yaraan 3 inay soo raacaan kuraasta damana waxaan rajaynaynaa ilaa 4-5 inay soo raacdo marka waxaan ka codsanaynaa odayaasha dhaqanka oo hawshaas ay khusayso inay soo gudbiyaan astaynta dumarka gooyinka listigoodii badanaba waan haynaa laakiin waxa weeye si gaar ah looguma soo qorsheyn dumar listigaad anaga waa noogu qorshaysan tahay laakiin ergada waa haynaa waxaan rabnaa inay isimadu soo magacaabaan oo yiraahdaan kursiga noocaasa wuxuu gaar u noqonayaa inay ku tartamaan gabdho ama dumar intaas baan rabay inaan ku soo gabagabeeyo